Waaxda xakamaynta maandooriyaha ee dalka Hindiya ayaa soo saaray warqad ay ugu yeerayaan 4 attriisho oo kala ah Deepika Padukone, Sara Ali Khan, Shraddha Kapoor iyo Rakul Preet Singh, kuwaasoo dhammaantood loo haysto kiis darooga ah oo la xiriira geeridii jilaagii lagu magacaabi jiray Sushant Singh Rajpur. Saraakiisha ka howlgala waaxdan ayaa su'aalo ku saabsan isla kiiskaasi weydiiyey ninka filim soo saaraha ee la yiraahdo Madhu Mantena wuxuu qayb ka ahaa soo saarista filimkii Bollywoodka ee Udda Punjab oo soo baxay sanadii 2016 kaasoo ku saabsanaa arrimaha isticmaalka daroogada. Magaciisa ayaa kiiskan lagu soo daray kadib markii sida la sheegay ay booliska la dagaalama maandooriyaha su'aalo weydiiyeen maamulihii dhinaca xirfadda ee Sushant Singh Rajpur oo lagu magacaabo Jaya Saha. Haweeneydan waxaa arrimahaasi xarunta waaxda xakamaynta maandooriyaha loogu wareystay 2 maalmood ee lasoo dhaafay. Maalintii Talaadada ahayd ayaa loo yeeray Krishna Prakash oo ah maamulaha attriishada Deepika Padukone iyo shakhsiyaad kale oo horey ula soo shaqeeyay attriishadan. Fariimo la iskula wadaagay WhatsApp-ka oo la qoray sanadii 2017 ayaa lagu ogaaday eedeymo ku saabsan attriishada Deepika Padukone, waxaana la sheegay in maamulaheeda ay soo iibisay maandooriyaal ay mamnuuc tahay in la isticmaalo. Deepika Padukone ayaa laga sugayaa inay xarunta baaritaanka iska xaadiriso 25 bishan Sebtembar 2020. Shraddha Kapoor iyo Sara Ali Khan ayaa iyagana saraakiisha waaxda xakamaynta maandooriyaha ka soo hormuuqan doona maalinta xigta ee taariikhdu ku beegan tahay 26 bishan Sebtembar, sida ay shaacisay warbaahinta ANI. Waaxdan waxay baaritaan iyo dabagal ku haysaa kiis darooga ah oo lala xiriiriyay geeridii atoorihii dhintay ee Sushant Singh Rajpur. Horaantii bishan waxaa xabsiga loo taxaabay 6 ruux oo ka kala soo jeeda Mumbai iyo Goa, kuwaasoo dhammaantood loo haysto kiiskan. Markii ugu horeysay waxaa la qabtay nin 23 jir ah oo magaciisa lagu sheegay Karamjit Singh Anand ama KJ, waxaana gurigiisa laga helay xashiish iyo maandooriyaal kale. Sida ay mas'uuliyiinta sheegeen, Karamjit wuxuu qayb ka ahaa dadka daroogadaasi ku lugta lahaa ee uu saameeyay baaritaanka socda. Ilaa hadda waaxda la dagaalanka maandooriyaasha waxay xirtay 16 eedeysane oo ay ka mid yihiin attriishada caanka ah ee Bollywoodka Riya Chakraborty, walaalkeed Shawik Chakraborty, maamulihii guriga Sushant Singh Rajpur Samuel Miranda, shaqaalihii guriga Dipesh Sawanti, iyo ganacsato iibisa daroogada oo lagu sheegay magacyadooda Zaid Filatra, Abdul Basit Brehar, Faizan Ibrahim, Karna Arora, Abbas Laqani iyo Anushka Shwani. Doodaha la xiriira dhinaca daroogada ayaa muddooyinkii dambe ku soo batay jiliyaasha shirkadda filimada Hindiya ee Bollywoodka, waxaana eedeymo ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha loo soo jeediyey dad magac weyn ku leh jilista filimada. 4 attriisho waxaa la weydiin doonaa su'aalo ku qotoma warar ku saabsan in ay daroogo isticmaaleen. Haddaba su'aalaha la isweydiinayo waxay tahay, ma laga yaabaa in eedeymaha isticmaalka daroogada ay burburiyaan mustaqbalka xirfadaha ee attriishooyinkan?